inaad mushahar ka qaadato maalka ummadda waxna aanad u qabanin waa qaladee adigu miyaad jeceshahay qof aan kuu shaqayn inuu mushahar kaa qaato eeg waxaad dowladda ula dhaqmaysaa shakhsiyaadkana ula dhaqmaysaa sidaad jeceshay in adiga lagula dhaqmo soo ma adiga nin qof aan waxba kuu qaban inuu bil walba kuu soo xadirula igu shub intaa waad su'aalaysaa waxaad leedahay muxuu ahaa intaanan kuu shubay maxay ahayd dee waa inaan isaga soo xaadiray buu ku leeyahay dee orod iska tag baad leedahay wax iska soo xaadira uma baahniye dee dowladduna waxay ku leedahay waad iska soo xaadirtay iga daa idan markaa kolley iyada oo aan la sii faahfaahinin su-aasha dee qof shaqo u diyaaro oo heshiis lala galay oo aan waxba qabanayn baan u fahmi karaa laakiin qof ama naafo ah ama bukaana ama beeshana dee kaasi kuma jiro oo inaanu waxba qabanin dee iyana heshiis baa lagula galay oo qofkii wuxuu abaalmarin buu qaadanayaa ama waa qof dee bukaan muddadaa ku jira ama la fasaxay taas waa xaalad gaara ee heshiiskii la isku ogaa waa inuu shaqeeyo waxna ma qabanin dee wuxuu wax ku qaadan lahaa waqtigu iibsado marka taana waxaan filayaa in inta aan ka garan karaya ama aan ka fahmaya intaas weeye jazaakumullahu khayran